nimcadu qofku haddii aanu ilaahay si fiican ugu xidhnayn ma xasuusto insaankuna waxaa caadadiisa ka mid ah nimcada markuu waayaa buu gartaa soomaalida waxay ku mahmahdaa maxay ciidan yar iyo calaf yar bay idhaahdeen marka la waayaabaa la tabaa insaanku inta badan markuu ku jiro nimcada inuu nimcaysan yahay ma garto waayo min طabci اlinsaan waxaa ka mid ah intuu hayaa uma muuqata inta ka maqanba qofka bini aadamka u muuqata waa طamac insaanku inta markaa agtiisa taalla way la yarta waxa warwarkiisa iyo hamigiisa ku jira waa inta maqan iyo siduu u xasilin lahaa laakiin intan taalla maalintuu waayaa buu gartaa inuu shalay tooshow sidii lagu jiray wanaag bay ahayd buu yidhaahdaa shalay sidii aad ahayd wanaag bay ahayd insaankuna maba dhargade laakiin insaanka mu'minka ah wuxuu gartaa waxa ilaahay nimco siiyey subxaana wa tacaala wuxuu gartaa sida uu nimcaysan yahay yacnii nimcooyinka ilaahay ku siiyey haddaad garato maxaa u yar yacni ayu shay aad soo qabato meel kale haddaanad ka fekerin haddii ilaahay ku yidhaahdo ishaada waa lagu siiyey adigu ilaasho oo nadiifso maad kari karteen ishaada nadiifso haddii lagu yidhaahdo waayo ishu markay cabbaar socotaba ee laydhu ku dhacda way engegtaa cabbaar markaad socoto dee dabayshan iyo boodhkan kuwan gawaadhidana wadataan dee waydinkaan arkeen markaad cabbaar socoto muraayaddu waa qarsoomaysaa waxba maad aragteen haddaad cabbaar markaad socotoba aan la safaynaynin ilaahay adigu involuntary adigaan ogayn buu kuugu talagalay cabbaar markaad iska yar socotay ishu meel haddaad yar eegtay indhuu ku xanuunaanba bidhbidh baad ka siinaysaa waa webaris rabbaaniya waa kuwii gaadhiga caynkanaad ku lahayd oo kaloo rabbaaniyo adigu aanad la soconin ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu nadiifinaya ilmo yar baa ilaahay ku soo daynaya oohintaa yar iyo qoyaankaa yar baa engega ka ilaalinaya wixii boodha ka safaynaya dhaska iyo maxaanku idhahdaa saxarka iyo ciidda iyo waxaa kaaga duulo oo dhan marka ish kaa gasha ama waad yaro marmaraysa ama laba jeer markaad sidaa tidhaahdo ayaad odhanaysaa ishii baa liqday ishaadu maalin walba hadday wax liqayso imse sannadood bay kaaga buuxsami lahayd baad u malaynaysa tanak xashiishkan yar haddii aad ku riddo warqad yar markaad maalin walba ku riddo 4 usbuuc kadib dee wuu buuxaa haddii mar walba isha markaad bidhbidh ka siisa ay liqdo maxaad samayn lahay godkan yare isha ka dambeeya dee nin waliba markuu 3 sano 4 sano wado ayuu odhan lahaa way iga buuxsantay meeshii xashiishka lagu guri jiray laakiin habeenkii intaad iska seexato ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ishaada si aan u xagxaganba xanjo yar alla ku duubaa dabeetana habeenkii markaad gamaadaanba halkan alla ka soo tuuraanu subaxuunbaad tidhaa xabajadaan iska maydhaya ma ogid wixii xashiish meeshaada ku jiroo dhan inta ilaahay kuu soo safeeyen haddana halkan la soo dhigay oo laga soo saaray maantii oo dhan waad ku sii guraysay habeenkii markaad jiibsatayna ilaahay wuu soo celiya halkan bay timi yar baad subaxii iska maydha adigoo leh xabajadaan iska maydhaya yacni waxa ilaahay nimco ku siiyey subxaana wa tacaala waxay idhahdaan caafimaadku waa taaj bay idhaahdaan waa crown waa bahalladan boqorradu gashadaan laakiin wuxuunbaa arka bay idhahdeen almarda waa taajun cala lasixaa bay idhahdeen waa taaj saaran dadka caafimaadka qaba laakiin taajkaasi wuxuu u muuqdaa un kuwa buka waayo ninka bukaa wuxuu og yahay dhibtuu qabo qofkan buka isagunbaa arkaya dadkan caafimaadka qabaya siday u roorayaan iyo siday u ordayaan idan qofka mu'minka ahi markuu rumaysan yahay ilaahay wuxuu nimco siiyey ee ilaahay leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah hadday hawatay hadday roobtay hadday cadceedtay bal dunidana cadceeda ka soo baxayn qiyaas meeshana biyo la waayo qiyaas hawadanoo laysku cidhiidhiyo lagu yidhaahdo maalintii intaasoo goor baad neefneefsanaysaa inta kalena xaq uma lihid qiyaas waxaasoo nimco alla ku siiyey subxaana wa tacaala maa tadri adiga waagaa kuu baryowna waad dhaqaaqda laakiin insaanka mu'minka ahi wuxuu dareemaya waxa ilaahay nimco siiyey subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay buu u mahad celinayaa cibaadada tani waa mahadnaq qofka bini aadamka maanta hadduu qof wax ku siiyo oo berri markuu kaa soo horbaxo haddana wax ku siiyo oo saa dambe wax ku siiyo col kastoo ahaydeen waad jeclaanaysaa way ninkan gacanta weyn lee khayrka qabowne markuu ku arkaba hantida iska kaa siinaya gacantu waxyaaba laysku jeclaadaabay ka mid يعني عقل قونا لا يسكما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حقوق المامة يدتك مؤمنين تهادوا تحابوا وماتيريال لكن هذا واحد لوجه إنسان كما يشوك غياله مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام هديات كيساسية واستعلان إنسان بحاضر ما لنسى إله ماله والبن معك السينية وبري بعد نمعدي سعون السو قبل دموك استاد نمعدي سكدر قيسو قفك مؤمن كي مرك إلهي ويندي سحسوسته markuu xasuusto ilaahay wuxuu nimco siiyey markuu xasuusto taqsiirka iyo gaboodfalka uu la imanayo marka uu xasuusto masiirka dambeeya janno iyo naara
marka uu xasuusto aakhira iyo miisaan